maanta wuxuu idin hayaa taariikhda guud ee Barack Hussein Obama madaxweynihii hore ee Mareykanka. Barack Hussein Obama laga soo bilaabo xilliga uu yaraa ilaa 55 jirkiisii. taariikhdan waxay tahay 1961 xilliga markuu ahaa uu yaraana. tan waxay tahay 1962 waa markii uu yaraa hadana uu yaraa aad u yaraa. markan waxay tahay waa marka uu istaagayay oo xoogaa soo kabcayay. markan waa marka xigta weli waxaan ku guda soconaa taariikhdii 1963 bay tan tilmaamaysaa. xilligaas oo ahaa xilli yaraantiisii uu aadna u yaraa bay ka mid tahay xilliyada uu yaraa. aan sii wadno. subscribe saar haddii aad ka heshay channelkan. subscribe ta waa xaggiina, like subscribe intaba waa xaggiina. waad mahadsantihiin. markan waa markii uu yaraa hadana uu ciyaarayay. waa xilli waxaan ku jirnaa da'diisii 1964 ayay tilmaamaysaa xilligaas oo yaraantiisii qayb ka ahayd. kaana la taagan waa aabihiisii iyo hooyadiisii. aabihiisna saad ogtihiin waa nin Afrikaan ah weliba Kenyaati ah. hooyadiisna waa tan dhinaca taagan asna oo yar waa ka dhaxda ku jira. saad ogtihiin hooyadiisna waa Ingiriisi ama Mareykan. markan waa hooyadiisii asaga oo dhaqtay ku haya 1965 ayay tilmaantay. markan xigta asi iyo abtiyaashiisa ciyaaraya oo meel xeeb taagan. markan waa kaligiisii. markan taariikhdu waa 1966 xilligaas oo ku asteynay xilli uu soconayo. waa dalxiis asi habeeladiisii hooyadiisii habeeladiisii 1967 ayay tilmaamaysaa. markan asaga iyo saaxiibadiisii dhalinyarta inteeda kale 1968 bay taariikhdan ahayd. markan waa goobada waxa ku jira waa asaga. goobadaasi ujeedin waa Barack Obama 1969 ayay tilmaantay taariikhda markaas. haddana waa xilligii asigii faransiiskiisii iyo ehelada intooda kale oo wada jooga Yurub. 1970 ayay taariikhda markaa tilmaamaysay oo xasuus weyn ku lahayd. markan hooyadiisii iyo asaga iyo walaalihiis intiisa kale 1971 ayay la tilmaamaysaa. marka waa inaan garanaa xasuusta taariikhaha. waa inaan wax ka garanaa. saad ogtihiin dadka Soomaaliyeed inta badan ba taariikhaha dib ugu tixraacaan waxna ma xasuustaan. inta badan Soomaalidu waxa lagu tiriyaa inay wax dhageystaan ay wax qorin. dadka hadda sidaad arkaysaan taariikhaha hadda idin muuqanaya 1975 xilliga waa la rikood gareeyay caalamka intiisa kale ama aan dhahno dadka ajaanibta waxyaalo badan ba waxay sameeyaan book note ama waxay sameeyaan taariikh qoraal bay ka sameeyaan si wax walba dhacaya ama wax walba caalamka ka socda ama wax walba loo book gareeyo. haddana waa saaxiibadii iyo asaga iyo eheladii inta kale oo reer Yurub ah oo wada jooga. eheladii dhinaca hooyadan ka wada. xilligan waxay tilmaamaysaa 1975 cideedana hadlaysa idin soo gudbinaysaa waa Al-Cadaala. halkaana waa Aways Al-Cadaala channel.
waxaan rabaa marka halkan waa asaga oo xoogaa weynaaday. sawirka ujeedin waa Barack Hussein Obama, madaxweynihii hore oo Mareykanka oo hadda ku sugan Washington ama xarunta dadka madaxda lagu sharfa la geliyo. halkan taariikhdu waxay tilmaamaysaa 1979 xilligaas oo ahaa xilli koritaankiisii qaangaarnimadiisii ah. xaggaana waa saaxiibada iyo xilligii ololaha siyaasadeed iyo markuu ku biirayay. laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano siyaasadda mar hore ayuu ku biiray madaxweynaha iyo hore ee Mareykanka. sababtoo ah waxaa la lahaa qofka saadaashiisa ayaa la ogaadaa. geed walba Soomaalida waliba qaasatan dadkan xamarka waxay dhahaan geed walba dhacaankiisu dhalaa. qaab dhaqanka qofku markuu yaryahay ayaa la gartaa iyo habka uu labisto baa lagu garan karaa mustaqbalka wuxuu noqon doono. markanda saadaasha markaas ayay xoogaa yara muuqatay sidaad ujeediin hab socodkiisii, dhaqankiisii, hab labiskiisii, bulshooyinkiisa uu la kulmo. haddana waa isagii faransiiskiisii iyo lamida ay saaxiibadiisii. 1980 ayay xilligaasna ku tilmaamaysay. markan waa keligiisii iyo waa xilli uu shalaysanayay madaxiisii, waana xilli uu markaasi howlo kale ku jiray. sida la sheegana waa qof aad waxbarashada ugu dadaal badan ayuu ahaa. Barack Hussein Obama waxbarashada aad buu ugu dadaali jiray. waa reerka aabahana sabool buu ka ahaa maadaama hooyada ay soo korsatay, abtiyaashiisna ay garab qabteen. 1981 waxay tilmaamaysay xilliga uu yar koray asii asxaabtiisii ayaana kulansan. markan waa keligii 1982 ayay tilmaamaysaa xilligan si iyo abtiyaashiisii iyo farandiska intiisa kale ayaa halkaan ah. 1983 ayay tilmaamaysaa waa farandiskiisii gabadha. 1984 ayayna xilligan tahay muuqaalka aad ujeedaan. marka su-aashu waxay tahay Soomaaliya ma aaminsantihiin in waxaan sidaan loo record gareeyay la waxeeyay ama wax dib laga habeeyay ayaad u maleysaan? marka su-aashaas weydiinayna waa taas. ma wax su-aasha idinku celiyo, ma wax dib la qoray oo sidaan loo habeeyay miyay tahay? ma wax markii hore la diyaariyay sawirro la isku keeni kara ayaa jira oo ama wax weyn laga dhigi karo. asi iyo aabihiisii markaasi sidaan ognahay aabihiis islaam ayuu ahaa. 1987 way tahay xilligan. halkan waa Kenya, meeshaan aad ujeedaan waa mar uu dalxiis u yimid soo arday ah. halkan waa Kenya weeye. halkan qofka kaliya uu cad waa asaga u maleynaa. walaalihiisii saaxiibadiisii kan dhexda ku jira waa aabihiisa. waa 1988. halkan waa Kenya. taa qofka ujeediin waa hooyadii, waa ayeeyadiisii. this guy macnaha wax qofkaad ujeediin waa asaga. kun 1989 ayay xilligan tahay.
halkan aad u jeediin aan ku celino sawirka aad u jeediin waa Michelle Obama waa xilli uu guursanayay 1992 ayuu guursaday gabadhaas waa Michelle Obama waa guurkiisii xilli uu guursaday asaga iyo Michelle Obama iyo islaantiisii markan qoftaas waa Michelle Obama أصل iyo Michelle Obama islaantiisii aba xaaskiisii waxaad u malaysaa hadda nin weyn oo qaangaaray oo guursaday inuu yahay oo hadda ololaha siyaasadeedna wax kaga jira xilligan oo xisbiga dimuqraadiyana qayb ka ah waa nin dhalinyaro ah oo ololaha siyaasadeedna wax kaga jira ayuu ahaa markan markan damac baa jira siyaasadeed intuusan madax naqan bay ahayd 1996 soo arrimaha bulshada ayuu qayb ka ahaa markan